Beledka Xamar way bageeka la ka dhawaayay xidigo Toronto FC oo ku dhisan magaalada Toronto ee dalka Canada. Way bana garoonka dayuuro deegaanka Aadan Cabdulle Usmaan ka dhawaayay wasaaradda dhalinyarada maamulka gobolka Banaadir iyo xiriirka banooniga lugta Soomaali. Way bana qorshigu u seeyaa in kulamo saaxiibtinimo la dheelo doonaan kooxyaal badan sida naadiga dawladda hoose ee Xamar Muqdisho City Club. Anka horeyntii way baa ciyaartoyda Xamar ka dhawaayay agaasimaha arrimaha bulshada iyo wacyigelinta gobolka Banaadir Cabdullaahi Eedan Muuse iyo gudoomiyaha hanraabta gobolka Banaadir Jawaahir Ahmed Jaamac Jawaahir Baarqab iyo mas'uuliyiin kale. Aadan ugu faraxsanahay haddii aan nahay gobolka Banaadir in ay noo yimaadaan waliba ay ku soo aadaan waqti ay ciyaarihii maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir ay dhamaadeen. Aadan ugu faraxsanahay waxaan halkan ugu mahad celinayaa gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho oo mar kasta ka shaqeeya isdhaxgalka bulshada ka shaqeeya midnimada iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed. Waxaan rajaynayaa muddada kooban ee ay joogi doonaan magaalada Muqdisho inay naga heli doonaan soo dhaweyn iyo firfircooni. Waxaan biidnillaahi kariim aan ka shaqaynaynaa inay la ciyaaraan naadiyada iyo kala duwan ee gobolka Banaadir. Waxaan ka shaqaynaynaa inay naadiga MCC inay ma aragtay tartan ay la ciyaaraan aan ka shaqaynaynaa. Aadan ugu faraxsanahay waxaa sidoo kale aan u mahad celinayaa soo dhaweynta wanaagsan ee xildhibaanada iyo mas'uuliyiinta kala duwan ay u sameeyeen ciyaartoydan halka nooga timid. Magaaladan waa magaaladii Muqdisho waa caasimadii dalkooda. Waxaan rabaa inaan u mahad celiyo waalidiintoodii ogolaatay inay Soomaaliya yimaadaan inay la ciyaaraan xulka gobolka Banaadir. Annagu waxaan u taaganahay haddana weenahay si dhalinyarada qurbaha ka jirtay ku dhalatay dalka u imaan laayeen kuwa inta jooga isku baran laayeen. Isboortigu waa isdhexgal waa saaxiibtinimo waa in wax la kala faa'iido ma aha in la qabyaaladeeyo. Marka waxaan rabaa inaan dhaho ku soo dhawaada magaaladii Muqdisho. Run ahaantii wasaaradda dhalinyarada iyo isboortiga waxaa sharaf weyn u ah maanta inay ka soo qayb gasho xafladan aadka u quruxda badan oo lagu soo dhaweynayo mas'uuliyiinta macallimiinta iyo ciyaartoyda ka yimid dalka Canada. wasaaraddu waxay leedahay dalkiina ku soo dhawaada dalkiina labaad ku soo dhawaada dalkiina hooyo ku soo dhawaada ayadoo aad dareemaysaan nabad. ugu faraxsanahay soo dhaweyntaas anoo ku hadlayo magaca xiriirka Soomaaliya kubadda cagta waana arrimaha ay yimaadeen waa arrimaha hor u jiri jiray isdhexgal bulsho hadda ka hor dhowr jeer way yimaadeen sanadkasta way imaan jireen waqti hore ka soo bilowdeen dhalinyarada waxaa loogu talagalay oo loo keenaa waddanka in ay wax ka bartaan dhaqanka arrimaha isdhexgalka bulshada. annagana waxaan ka faa'iideynaa runtii ciyaartoy badan oo haddii ay ka soo baxaan aan u isticmaali karno qaranka Soomaaliya. shacabkii Soomaaliyeed ee ku noolaa qaranka Soomaaliyeed gobolka Banaadir inaan soo dhaweyno dhalinyaro Soomaaliyeed nooga timid Canada. anu magacayga waxaa la dhahaa agaasimo Jibriil Afyare xiriirka caalamiga iskaashiga caalamiga arrimaha dibadda aan ahay mas'uuliyiin kalena way joogaan. waxa farxad iyo diile iyo farxad aan la soo koobi karin oo ah dhalinyaradeenna Soomaaliyeed ee qurbaha inoogu timid aanu tusinno bilicda iyo quruxda iyo nabadda iyo maamuuska wanaagsan ee Soomaaliya ee leedahay. waxaan ugu faraxsanahay maanta inaan waddankeena hooyo imaano ani dhalinyaradan gadaashay taagan dhalinyarada badankooda markooda u horeysa imaadaan waaye waxa ka soo horeeya ma garanaa laakiin maanta lugtooda ay ku imaadeen. taada kale waxaan ugu mahad celinaynaa insha Allah mas'uuliyiinta noo imaadeen maanta si fiican noo soo dhaweeyeen meeshan joogaan iyo wallahi thank you so much maalmaha noo soo socotaan insha Allah war anaga warna siin doona insha Allah.